inan dhalinyara oo si wanaagsan aabaheedu iyo hooyadeed soo barbaariyeen ayaa waxaa iskuulkii quraankii bay xifdiday waa lagu dadaalay dugsi hoose iyo dhexe iyo sareba way ka baxday ilaa intaa telefoon iyo moobil midna may qaadanayn fasaladana xagga hore ka geli jirtay waxay ardayad xariifada markii ay soo gaadhay marxaladii jaamacadda ama ay iskuulkii ka taqarrujtay inan weyn bay isu dhigto aabaheed oo aad u ixtiraamayo inanta aad u jecel ayaa ku yidhi aabbo adigan dee jaamacaddii gelaya maxaad doonaysaayo waxay ku tiri aabbo moobilka ballaaran ee faraha lagu walaaqo kaasaan rabaa kaa wuu soo iibiyey burkaba bahalka muu filan qisadaasi hargeysay ka dhacday markuu u soo iibiyey nabadiyo caana waxaan ahaynba waa la kala qaadaaye mid kaloo aafaysan ayaa iyadu markiiba arrimo aanay haabka iyo hiyigaba ku haynin tustay oo tiri dee waxaa la soo furtaa internetkii oo halkanaa la galaa oo waa sidan oo waxaa la samaystaa account noocana oo waxaa la samaystaa fasaad buug annagu waxaan u naqaanaa fasaad buug idinku wax kala u taqaanaan soo maaha waaye ayaa la samaystaa wixiiba way u wada furta markiiba mid kale ay garanaysay isku xidhay inankiibaa marba risaalad u soo dira marba wux u soo dira aakhiratankii waxay gaadhay inuu qalbigeedii meel ku yeesho imrulqays ninkii la odhan jiray shaacirka ahaa ayaa wuxuu yidhi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana buu yidhi marka inantii ninkii isagoo cala alhawaa ayuu qalbiga meel kaga yeeshay waxay gaadhay inuu ku yidhaahdo soo dir suuradahaaga iyo sawirradaada marba mid bay u dirtaa marba mid bay u dirtaa waxay aakhirkii gaadhay in uu ku yidhaahdo sawir xijaabanooyo asturantay markii dambe wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiye horta aduu sawirradanaad ilaa hadda laysma araga garo horta adigu sawirradanaad soo dirtaa inanta dhowrsanaan waxay ka qabto 20 sannadood ama dhowr iyo 10 sano weyn baa lagu soo dadaalayay heer jaamacadeed bay soo gaadhay quraankii bay xifdisanayd horta waxaan ku weydiiyey adigu sawir adeeyada u egtahay un baad noo soo dirtaa maxaad sawir muxuu rabaa muxuu ka jeedaa sawir deetimuu qaawin oo dee magaranaysa kuwaynu garanayno inantii markii dambe wuxuu sameeyey sawirradii buu ururiyey wuxuu sameeyey markaa waxaan la yidhaha photoshopka ee laysku hagagaajiyo iyadoo qaawin buu ka sameeyey iyadoo sana buu ka sameeyey waa kan wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa intimidation ama cagajuglayn waxaan doonayo haddii aad samayn weydo sawirradaadaasaan baahinaya inantii waxay istidhi ceebtaada oo kow og yahay kun looma sheega yidhaahdaa waxay istidhi isagoo ha ku ekaado way u baxday oo way aragtay oo wuxuu ku samaynayey buu ku sameeyey waraabe dhergey baa walaalkii xasuustay waraabuhu wishiirri baa la yidhaahdaa markuu neef helo wuu isu qayshadaa buu yidhaahdaa wuu isu soo ururaa markuu inantii wuxuu doono ku sameeyey ayuu ku casuumay kuraydii xaafadaha iyo asxaabtiisa inantii way xejin kari weyday problemkii iyo mashaakilkii ilaan cidna uma sheegi kartee balaayadanna ma garanaysee dabadeedna way waalatay way ku dhufatay markay inantii xanuunsatay ee maskaxda xanuunkaasi kaga dhacay ka bacdina way sheekaysay wax walba way ka sheekaysay ninkiibay ka sheekaysay wax walba ninkiibaa ogaaday dee in reerkii raadinayo xabad lala doondoonayo dabadeedna wuu baxsaday tahriib buu ku dhuftay isagana ilaahay baa qisaasay oo dooni baa kula degtay badweynta hindiya iyo maxaa la yidhahdaa libiya atlantic oceanka ee u dhaxaysa maxaa la yidhahdaa mediterranean seaga ayay kula degtayoo halkaasuu ilaahay ku qisaasay waxay iigu war dambaysay inantii oo xanuunsanaysa oo cilaajyada ku xidhan aafo ma yahay moobil mise maaha ajala ma goyn karaa mise ma goyn karo mindi laba afle ma yahay oo ku gowracaysaa
idinkaa jawaabahaan idiin dhaafayaa iyo ummadda kale faraha badan